وريدي خوا أدبو في عين أنت عباد هلي كرتاه إلا إيا كنتم حبوات هلي كرتاه warkonton cabo maxay taraysaa dawlad iyo shacabkeedii dhamaa baanu la dagaalaynaa boqol ugu yaraan waa inaan ka helaa kuwan ilaa iyo konton xabo waxaad ka heli kartaa wax ka badan maafiya haween oo la yiraahdo dabla imisa kiilo badeeca ayaad haysaan 10 kiilo waana qaali kama hadlaye qiimihiisa ii sheeg badeecada waxaana u baahannahay ilaa iyo 200 kiilo oo darooga ah ma haysaan maxaa yeelay waxaan rabnaa magaaladoodan inaan ku wada daadino intaasoo badeeco alqaf ayaad keli kartaan maafiya weyn waa kuma dabla ninkaani si xun ayuu u dhintay meedkiisana waan arkayaa laakiin waxaan u baahanahay caddeen si dhaqso leh loo baaro maxaa yeelay khasaare ayaa badanayso muddo 4 bilood ayaan arrintan baaris ku haynaa wax caddeyn ah wili ma aan helin maxaa dhacay magaaladan ma joogo miyaa qof arrintan loo xil saaro baaro hal qof ayaa jira oo arrintan baari kara yuu yahay gawra naagtayda way xanuunsan tahay isbitaal bay ku jirtaa adinka maxaad meesha ka qabanaysaan waxa qareen jooga magaaladan wiilkayga maxay u soo dayn waayeen oo wiilkaygu jaalka ma cimrigiisa ku dhamaysanaya maya wiilkayga dil rabo hadda la soo bixi karaa oo yaa soo saari kara gawra gawra hubkii aan dalbanay dhan waan helnay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay gawra ninkii daroogada naga codsaday waan u gudbinay lacagteennana wuu inoo soo shubay gawra qorshii way fulay master gawra adiga daraadda ayuu wiilkayga bannaan ku yimid haddii adiga aadna joogi lahayn xabsiga ayuu ku jiri lahaa adduunka dhan waa lagu ogyahay in gawra is yahay nin daacad gawra waryahoy gawra banaanku soo bax muusa weli ma nooshahay iga leexo waryaa nin sharaf laha iska dhigaysaa miya buuflayow war waxba qaylaha isku dilni qayladaa sharaf kuma yeelanidi buushaa sharaftaadu shala ayay ahayd laakiin maanta waxaas kale gawra waryahoy waxaa qiimo leedahay ma jiro qiimaha aad leedahay isku yeelaysid anigana kuu yeeli waryaa waxaan kuu malaynayaa nin raga inaad tahay adiga laakiin waxaad noqotay sidii naagiyoo kale waqtigu wuu isbedelay waxaan kuu sheegayaa in amarkay keliya uu magaalada ka socdo hoy mashiixa majaare eegayga camal aan adiga kuu soo korsaday ani ma ogtahay saas haddii aan umaleelahay inay qaqarofee sharaftaama ku soo gaarsileen aniga dhalinyarada magaalada jooga dhan darooga ku daldashi dabuusiyaw waxaa ka soo horjeedaa dowladayni sharafta leh waxaadna hub ku daldaloysaa wixii dowladda ka soo horjeeda waryaa هاي ماشان دول كاين هاي واي قفكي كودا ديلاين انيغا ماغو واخ ان ويرا ساي ما جيرو تاسغا قلبيغا غلينك اني واني ديغويا قفكي اسكو داي دول كاين اسبابي وان اسكو بدو اسكو داي ها اريا بخي ولي هذا وريا غورا انيغو كسو كرسبيا دي قيانتاي ماغا ما في دول كا دغتي دول كاغا اكو دالتينا وا قيانتاي لكن waxaa in ku dhaarahay ugu balan ninkii dhulkan cadaw ku naqdo annaginaas cadawgaaga yahay waaya arrintan cadawnimadaada iga jeedid ayaan anigoo gowra ah hadiye kuu siinayaa hadiyadaasina waa gabadhaada meydkeeda afka ka go'o bartaas anaa dhali walaashaa camal waaye xiriirkaas wuu dhammaaday cadawgaygana waxaa naga dhexeeya cadawtinimo keliya orod war gabadhaada haddaa badbaadi karta badbaadi
وادين بريا هداية هداية alla igu yeera ninka la yidhaha baabarti ku soo gaaray riboodkan war ma waxay qoreen qoladan wax matarayaasha ah madbacada dawladda ay waqtiga ka luminayaan war waxaan oo kale tijaariyada aan qiimaha leena lagu qoraa war midkaani maaha mid oo caadi ah waa arrin sax ah oo ciidamadeena ay soo gudbiyeen war gabar nool ayaa noloshii lagu gubay waxaan waa waxaad dhaaf ah war xad dhaaf maahay waxaan maalin kasta dhacaan dil dhac bob siyaada kasta maxaan ka kari karnaa isbatoore ciidanka oo saaxiibkeeya yaa wuxuu oran jiray meel madaxu ku taagan tahay dablay maxay ka kari kartaa aamus sideedii la hadlaysaa waar anigu waxaan ku weydiiyey gabadha kiiskeeda oo keliya maxaad ka haysaa waan baaraynaa markii aan helnaan kuu soo sheegaynaa haddaad si degdeg ku soo gudbin weysid waxaad la soconaysaa si degdeg ayaan kuu bedelayaa ma samayn kartid balse waa iga sarraysaa awooddaasna ma lihid awoodda waxaa iskale wasiirada gacmahoodana madaxeenna ayuu saaran yahay waa inaad si dhaqsi la xafiiska iga baxdid waayahay waxaan kugu waaninayaa adigoo dharkaan xiran inaadan muraayad isku eegin dharkaa kaa wasaqoobayo sanad oo qura ayaa nooga hartay shaqada waa inaan lacag shaqaynaa maalintaa dhimatida ciyaalkaadu inta ku qaadaan ku soo gubaan maxay kaa dhexlaayaan oonan ahayn alaab taas la soco hawl wacan subax wanaagsan taliye baaradsi kaalay taliye baabarla gabadha arrinteeda wax ma ka hadlay tii lagu waajay wax badan dowladdaba wax ka sheegay sharcigaba meel uga dhacay anigana hadalla xun buu yidhi askarigan oo kale ayaa sharafta ciidanka shacabka meel ugu dhacaya annaga waxba kama qaban karno waayo wasiirada ayay gacan ka haystaan dembiyada maanta magaalada ka dhacaya waxay u socdaan sidii saacaddan midhidhkeeda halkaa uu imaanayo kullay sharcigu sidaan kuma sii soconayo wuu isbedeli doonaa hey ma baxday jey hal isbuuc ayaa intan keenaysaa hal mar xataa mala hadli weyse adiga waa taqaanaa odayga dhalay sidaan ula hadli lahaa iyo sidaan ula sheekaysan lahaa waa inaan si fiican ugu soo baaraan degaa laakiin siday noqoto waa inaan bartaa habeen iyo maalin
iyada ayaa hortaagan. walaal ma sidana hurdada la iskaga toosiyaa riima aanan ku jiray haweenkii oo dhan ma joogtidee maxaad qabataa walaal adiga waad ogtahay inaan Dubai qorshihiis aan ku jiro ee journaalka maanta isii aan akhristay laga yaabo qorshe Dubai inuu ku qoran yahay waqtigaas haddaynan iska dhicin lahayn ingiriiska lugahooda hoostooda ayaan ku jiri lahayn innaga xilligaas aan annaga u dagaalamaynay xornimada waddankayga sida aan uga qaadi lahayn ingiriiska islaam walba uurle waxay u ciishoon jirtay siday u dhali lahayd 10 carruura oo waddanku u halgama ma xumo war haddii laga soo horjeesan lahaa maafiyaalkan askarta iyo sharcigoodaba mid ay gacan kugu siinayaan ma jirto Gowra 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 hadaco waxaan maqlay ducadu inay cimri dheer leedahay sidaas aawadeed ayuu shaydaanku u cimri dheer yahay war yaa doqa iga cabso war maxaan kaa cabsadaa adigoo kalaaba noloshii gacantay igu jirtaay gowra ha dhaco gowra ha dhaco gowra ha dhaco ha dhaco waryaada intiina si arka ninkan qofka dilay adiga ma aragtay may taliye markaan halkan imane arrintan waa dhacday meedkan waa yeel waryaa arrinta ciyaar maaha nin oday siyaasad ka mid ah ayaa la dilay meedkan keliya ma aha idinkoo dhan wada meed ayaa tihiin sawirro ayaa tihiin inno la dhegana la sidaa noloda idiima noqoto hurdad ka kaca halgama anigii caawiya hal markaati iyo hal caddeyn isiiya kadib waxaan idinka ballan qaadayaa gowraha iyo dabadhilifiyadiisa inay sharciga isku dhiibaan waxba ma ogid isbatoore carruurta camal ha u qaylinin gowra awoodda qaban lahayd weli lama helin waddada markaad ka qaylqaylinaysay waan maqlay arrintaa oo keliyaan u imaaday ayo isbatoore imisaad qaadanaysaa annagu waxaan korsannay eeyaa daacadda ah raashinka markii la siiyana qaylada way joojiyaan adigoo saldhigga dhex joogo yaa awood kuu siiyey askari inaad ey ku tilmaantid eeyahow sharciga awooddiisa labiskaaga kartidiisa iyo dhiiggaaga kulaylkiisa ayaa awood kuu siiyey inaad aniga gacan aad ii qaadid laakiin dhabti qof ani uma sheegin sug anigaa ku sheegay maafiyadayna waa biyaan oo kale haddii biyo kale lagu daro lagama soo saari karo laakiin cadowga suntiisa haddii lagu daro waad ku dhimanaysaa ma aragtay gawraa biyaha ciiday ku darsameen waxba ayaa caga juglayn isbatoore maydkaaga mar dhow ayaa la gubayaa
nasiib uma yeelanays in lagu gowraa maalintan caddeen kugu qabto sidii eyga oo kale ayaan waddada kugu jiidayaa waana igu balamidaas hooyadaa waxay ku qaldantay magacaaga bakarsiinay ka dhigtay haye ma ilowday kuwa magacaaga oo kale leh inay hore u dhinteen shiidnimo adigana taas baa kuu dambaysa anna midaas baa igu ballama waryaa isbatoore ma fiiho cadowgiisa marna ma dhaafo arrintaana marna ha iloobin वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्यसु सर्वदा Gita Hay, maxaad ii wacdi ood i tusinaysaa Anna. anna barbadnaa Ha. soo kii ma aha oo ballanta ka bixi jiray meel looga hagaana lahayn isbitaal Xuseen waxaan ka war helay inaad nin daacada tahay taas ayaan halkan keentay waanan ku aaminay waayo Gita weligeed baan iimaan sheegin Gita waxay ii sheegtay inaad garabna siin doontid haa garab waa iga helaysaan nin caruur iyo xaas ay ka dambeeyaan muxuu tuuganimo ka keenayaa isagu midda laga rabaa waxa weeyaan oo kaliya inuu dadkaas wax u raadsho kuwaas uu noloshooda mas'uul ka yahay ninka tuugana wuxuu ku dhimanayaa askari xabadiis ama iyagoo dila oo kaliya biiri anigaba waxaa lugtan iga jabshay gowro anigoo la shaqeynayo tuuga adigu u sheeg dhalinyarada magaaladan ku nool inaad u sheegtid in tuuganimadu wax faa'iido aysan lahayn taas u sheeg qolada joornaalka qortaana yaysan magacooda ugu qorin inay atoorayaasha yihiin oo kaleeto waxaan kaa codsanayaa adigu inaad maafiyada baabiisid aniga ayaan warbixintooda kuu keenayay baabi aniga ayaa kuu sheegaya muusha iyo gabadhiisa ninkii dilay anna waa kuwee gowra xageen ka helayaa anaa kuu sheegaya madan gabe saldhig ayaad ku cawaynaysaa markuu kulubkaygan iga dhacay ayaan ogaaday inuu nin raga soo socon waa in aad kiiskan baabaydaa maddanna xabsiga ka soo saartaa amarkaagaa jira dacwaddan aniga ayaa baabi'inaya middaas anaa igu ogtaa sidee u hadlay taliye ninkaas si dhib badan ayaan ku soo qabtay aniga adigana waxaad leedahay ninkaas xabsiga ka soo daa feelkiisana xir waryaa askari filmaadka amitabh bachchan aad fiirsanaysa iska daa waa ku maxruugaysa haddaa maafiyada ka hari weysid war waxay dan kuugu jirtaa maafiyada inaad ka hartid niyo odaga war iska baabi'i dembigan anaa ku amrahay adiga waa yahay taliye aniga ayaa baabi'inayo waad wanaagsan tahay war waa max amarka aad igu siisay kiiskan inaan xiro ku qor ina sii qoraalka war maskaxdaadu ma fadhidaa maskaxdaydu way fadhidaa aabahaygaba aabaan iraha
ma ihi gaawraha oo kale oo hooyadiisa si foolxuma u caynayo. waryaa askari sidaa doontadii garaac wax aan wax kaaga sheegaya ma jiraan gawraha arrimihiisa gawrahana waa ninka maanta magaaladan ay kor u tahay oo magaciisa laga yaqaano nacas yahow anaga ciidankeena dad madax ah ayaa gacanta nagu hayo ma aha gawraha iyo xulfadiisa hal beri ayaan ku soo wada qaban lahayn. hay adiga nin askari ayaad khaniis ku tilmaantay adigoo kale ninka ragga isku tilmaamaya naagaheena ciidanka kaliya ayaa ku filan. Raziya Durga Maria qofkan waxaad ilowsiisaa maalinka gawra uu soo koriyay ilaa iyo hadda laba beri ku ilowsiya. isbitaare ma fadlan iga cali dadkan waa idilaa iga cali dadkan anaa kuu sheegaya wuxurdida iga cali dadkan iga cali isbitaare anaa kuu sheega waxaan ku sheegi lahaa waa digniintii xaritaankaaga. waryaa gawra waxba iswaalin ee wiilkaaga fiiri siduu u dhididay dhiiggaaga tusin. waryaa isbitaare waxba walaalkayga aan wax jigulaynin isagana ku dar. hoo isbitaare atal warqad le maarata 3 qof inaa ku aruursatid taas ma ku suurta galayso waxaa la rabaa warqad cadaan meeshaan la imaaw labada ah haysto unka nool imaani. idhageys isbatoore arrintan meeshaan ku dhameey lacag intaad doontid qaado intaad doontid tirso anigaa ku siinaya. 3 tirsi ayaan aqaanaa haddii aad 3 tirsi igu soo raaci weyday qasab ayaan kugu wadayaa. 1 2 adii ma garanaysid isbatoore waxaad ku kacaysid nin askari ah ayaad ku tilmaantay adiga ayaa sidii eeyo kale ku xiray. tali wasiirka imaad waa kuma isbitaalka bakatsin waa aniga gawra iyo walaalkiisa adiga ma xiray haa waad fiican tahay shaqo wanaagsan aad qabatay waan ku faraxsanahay anigoo magaalada dalxiis ayaan akhbaartan maqlay waxaan kugu imid inaan ku hambalyayo waxa fiicnaan leed wasiiradoo dhan inay sidaadoo kale ahaan lahayn. jaale wasiir oo ku salaam isbitaare waa kan waraaqdii goora ay walaalkiis lagu sii deyn lahaa. raggan aad maanta xiratay intaysan qoraxda ku sii dhicin waa inaad soo deysaa maxkamadan ku amartay askari waa inaad soo deysaa maxkamadan ku amartay soo saar. waxba ha kawalwal wiilyahow caddayn markaad baad haysataa berito maxkamadda keen anigana garab ayaan ku siinayaa anigaa kula jero waqti walbo haddaad ii baahato diyaar ayaan ku ahay taxadirna lahaaw. maxkamadda caddayn ka noqonaya adiga daraadda ayaan xabsiga ugu jira maanta haddaan kasta waxa kuu kalifay
كلف هذه مليد وحاسك عليه عرب كاغون أيه يرانت هذه عرب دايرات يا هالو يا مدر ما حبسي اسكو دخ ديلay Oi, isbatore. Maxkamadda ma u socotaa? Maxaa ka jiri haysaa? Badan baa dhintay. Meedkiisa banaa wataa. Waa ka baabuurkaas fuulaa. Had wax hadeenba ma wadatid. Isla guwa la dhiman hadda. Guwa waana u wadan hadda. Hadda aad mana raacaysaa inaan soo gubnaan rabnaaye. walaal goormay timid hadda raayimid adig seeta oo fiicanahay kuwan inay ahaayeen ma booliiska daba taagan yihiin shacabku waa in wax loo qabtaa shacabkuna waa inuu booliiska dhiirigelin ka helaa walaal soo bax dacwadan ku raacnay may walaal kuwa ma raacayno sabab walaal adiga ma taqaanid kuwan yihiin ma garanayo yihiin raali naga ahaado mid raac karno kalyan berit ayaan is arkaynaa التلافن لا يصدر أنا بكو إماها ما كستي ولا الحناقة بدن اسكده ولا الكني رأيي ورن سيدو يا بريان معيارو هيا هو في عيني هي عيار أيوه هيا رمحادي ودعي يقرا له عمول أينه ها وان قلدومي اقرا له هو باكورت هذا waad mahadsan tahay aniga waxaan ahaan jiray ciidankii hore ee soo halgamay shacabkana dantooda ay iska raacanayaan qof garab isiinaya ma leh ما عيدنا هذا ها ciidan ayaan ahaa wilib waxaan ahaa ciidankii militariga adiga intaad u socotaa mister jay kiran waa salaamantahay waa kaa qaad waxaan u socday doctorka indhaha ma ujeeda wuxuu ku yaalaa sartaas dheer gadaasheeda ها laakiin adiga waad arki kartaa aniga ma arki karo doctorkaygana waa asaga صباح aniga ku geynay markaan ku arkay waxaan ogaaday mustaqbalkayga inuu dhismi doono idhageyso waqti kastaad ii baahan tahay diyaar ayaan ku ahay aniga qof kastood wareysata gurigeygana waa ku keeni karaa fasax ayaad u qabtaa adiga walaal aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay haddaad timaada adigoo kale gurigeyga mahadsanid باي waryaajee macajidka camool ugu joogtaa baxwalaalka kaawinaya mide guriga aad magaaladan waa ay halawday haddii nin walbaaba xooggiisa sheeganayo laakiin ma fiidan xaggee nooga timid waa waclada magaalada oo isbiirsatay heer waxay gaareen dawladda ay la dagaalaan haddana awooddooda way ballaaratay nin ciidan in afkiisa waxaan oo kale soo maraan kuma wanaagsana darajadaadu maxay tahay waan qaylinaa oo keliya qaylideenan akhbaarta keliya lagu qoraa gawra iyo xulufadiisana askarta wax kama tari karaan saraakiisha iyo madaxda ayay gacan weyn ka haystaan dadkaas shacabka booliska wuu aaminsan yahay haddii idinku aad ka cabsootaan maafiyadiina shacabku siduu idinku aaminayaa idinka weligood yuuna aaminin shacabka ninka askariga mushaharka uu qaato muxuu ku leeyahay daruuf ama dhib uu ku jiro ayaa loo gadan karaa ninkaas mid iga dhagayso wuxuu waddankan qiimo yeelan karaa markii booliisku uu dagaalamayo sidii militarigii oo kaleeto maalintaas ayayna maafi u dhammaanaysaa waa runtaada walaal taas ayaaba igu kaliftay waddankana iskaga tago aan dubay aado sidee tahay walaale dhagayso hadalkiisa waddanka mu shaqo ka waayay markuu dubay shaqo u aadayo shaqo ayariso waddankaada miyaa nacday may walaal aad iyo aad ayaan u jeclahay laakiin waxaan ka cararayaa dhibaatada waddanka ka jirto midaas ayaan la socdaa dad aad iyo aad u fara badan ayaa waddankan ku shaqalaa idinkuna waxaad qorteen ciidannimo anigana waxaa iroon inaan iska aado dubay si aan mustaqbal u yeeshto meeshaasna waa meesha keliya oo aan lacag aan ku yeelan karo
ها adiga indho maan leedahay ها ولا يا إندو si fiican wax muu arki kartaa adiga ها سفيعا أيان أو أركي كراها maxaa jira adiga maxaa jira jay dirac maska soo xadi maya usiga maxaa usiga mii sheegin asaga inuu indhihiisa fiicnaaday yaa amoole ah jaygii hadda indhoolo ma aheno asaga yaa amoole ah jaygii hadda indhoolo ma aheno asaga ad wax aa ogtahay mala ninkaan la dhalay bacwadii koowaad dhucey caana meesha fuushaas hore ka cawi indhihiis waa weyn wey yah aabe aniga bistooladaada si ninkaas waan dilayaa isi oo yaa dilaysaa kee waay aabe adiga iska dhaaf maysiinay bistoolada mise maysiinaysid gabadhaydii goornuu askari ayaad noqonaysaa waa inaad barataa shakhsi in uuna sii karnin askari bisoladiisa 10 ilaa 20 askari isii oo ninkaas soo xiraan bakadsi gabadhayda dhibaatadays waa inaa xallidaa waayahay laakiin kiiran gurigeeda ayaan tagay kadib qolkeeda ayaan galay waxaan arkay ayadoo muqdisho ka soo baxday naftirkay lamadaan cawaro roob way qabowgan way dhigooyay ka bacdi maxaa dhacay ii sheeg horta i weydii wax aan arkin aniga haddii aan aniga arki lahaa aniga ma kuu sheegi lahayn qoftaas orda yaa orda waa lasku yimid saxaar meel xun isku dhimaa waa kuwaas ordaaye iska daa ninkaas intuuga maaha wax walba uu kugu sameeyena aduu kugu dhibayay ma taqaana qofkaas haa waa walaalkayga yaraa yah adiga ha u qaadanin inaan walaalkayga ahaan aanu daynayo waan ciqaabayaa biskide je biskide halaana aad ma cune saaxiibo vanood 4 beer cunto malaysiinaayo walaalkayga waa askari waana nin xun asaga hadduu guriga tagana wuxuu leeyahay 4 beer cunto lama siinaayo 4 beer cunto la siinin isaga idib yeelanaya idib dara ayuu sameeyay u kaadi walaal wiilku waa wiil naga yar saan ha ugu qaylinin dhigayso walaal adiga hana soo dhaxgalin adiga xiradaada iska aadaysaa dhibkiisana aniga u yeelaa maxaad ii hortaagantay qolkaaga aad orod amarkaaga jir walaal waan baxay walaal duuduub igu dhaaf waa ii fiicanta 4 beer cunto sadaan cunay haddaan si raax leh aan u hurdayaa waryaa yariiso walaal haabo bal fiiri raashinka aan kuu keenay raashina ma cuni kara adiga marow warkii waa baxay waxba gaajaa isku dilin raashinkaan cun marow aniga marow walaalkaa miyaad ka carootay abbow anigaba waa igu qayliyaa isaga waxba hadalkiisa tixraacno waa askari ninkaas waxba ha gelin marow ma cuni kara aniga marow abbow ii cun ma cunay igu dhaar abbow ii cun iska cun gaajaa isu dilin iska cun si fiican eesha hagaag yaa ii soo gala albaabka aniga raashinaan kuu keenay may walaal cunta ma cuni karaan marow may caraysan tahay fiir cuntada maqaayadkaaga soo gada aniga laakiin ha u sheegin walaalkeen weynaa inaan cunto kuu keena aniga bravo cunta igu dileen oo gacan galay jay yaa waaye waa aniga vinod cunto le amaad ii keentay kaniinigii aan ku keenay caloosh lagu dejinayay caloosheeda kaniini ma ahee wax kale ma geli karto dhibba ha igu haaftee afkaale fur مسخشة عادي ما حناقنه
ها waa xanaaq aniga wax kastoo ahaato waa ka helay aniga ninkaas jey waa aad iyo aad wiil u fiican xataa aniga guriguu iigu yimid dhalinyarta kale way ku jeclaanayaan laakiin markaad duqowdid ayay jecelkooda ayaga kuu sheeganayaan وأكو بريا وين بريا وين بريا إداي وشيء كرج عيلكي ولي جبر مجعلان يا أخ مدي كرو مجعلان وين بريا إداي أنا وين بريا أنا كان مرة بحرنا قليه سأسكري قارتنا وقليه مركي أركتد مال هدلسنا ما كان يلين فرصة ويمن كفايدس شحاريا وكفايدس فرصة دان واتس واقع عن قليه صاحر يا waaye hadda hortaadii yimaado maxaad dhihi kartaa aniga og waxaan dhahayo markuu hortayda yimaado jey aad iyo aad ayaan kuu jeclaaday waana kaa helay I love you maruntaada ma adiga waa ku baray mar labaad igu soo celi waa ku jeclahay hal kale ma jiro jey labadiina iyo aniga qofna soo afaray wili ma arkin hadda ayaan jeclahay qof afraad inaan keeno walaal gabar ayaan jeclaaday waa arrin aad u wanaagsan xilli saara ayaad niiga qaaday aawo gabadhi waatan ma anfici karto walaal adiga waad khaldoontay gabadhan waa saaxiibadeedii waan isjecelnahay naftaasaan naga dhexayso walaal boqolka rubi oo kaa dhumi jir ma dhumin anigaa qaatay gabadhan ayaan wax ugu soo gaday kaad wax kalan ku tusaya fiiri waraaqaha oo dhan kiran ayaa ii soo qortay aniga ma aragtaa walaal si xishood la'aan ah ayuu jaceylkiisa u soo bandhigay haddii aan si raaxa lah ku weydiin lahaana ma sheegin lahayn jaceylkiisa waa tuma gabadhu taliyaheena gabadhiisa waa gabar aad u fiican mar dhowna askariid ayay noqonaysaa laakiin jey adiga ma ka fikirtay taliyaha hadduu ku weydiiyo walaalahaaga maxay qabtaan maxaad ugu jawaabi lahayd adigana inaad tahay nin rajaynaya inuu dubay aado meesha ka shaqaysto sidaas ma odhan lahayd jey shaqo fiican maa raasatid mustaqbalkaaga ka fikir waa adiga wax kuu dan ah ka fikir mustaqbalkaaga annagana magac noo yeel waayah walaal dubay waan iska dhaafayaa waddankayga ayaan ka shaqaysanayaa middaasna ayagu balan ah taas ayaana kugu dhaaranaya ee hal mar ii qosol جيتا أنا warbixin fiican ayuu ku wadaa warbixintan xaggee ka heshay taas waa shaqadayna annaga berita ayaa alaabtiisa alibaab gowraa loo rarayaa la socotaasna
waa kuma wasiirka kula hadlaayo tali isbitaal bagad siinaya kula hadlaayo haa hadal tali gawra walaalkiis ayaan xiray ya daroogo ayuu waday iyo hub fara badan taliyaheena wuu maqan yahay delhi ayuu aaday waqtigan adiga ayaan kuu baahanahay xageed joogtaa alibaba meeshaada joog aniga kuwa imaanaya waayahay walaal bagag xagga u aaday waaba ogay asagoo inaan aniga maanta xaroonayo aniga koleyba waxaan u maleeyaa shaqo muhiim inuu ku jiro wuu imaan lahaa maahe marka walaal salaaniga gaarsii waraaqna ha ii soo qoro walaalkeenna hadhiban waa ku ogahay adigana dhibloo tahay waxaas ma jiraan waa ku salaamaa boowe safar wanaagsan walaal waayahay boowe waa dadaasha bagadsiin gawraha usoo xaray ninka doonis waa kan eeyahow tuugadan gawraha iyo xulufadiis ma ku daba xirata adigoo wasiir ah war macas baa tahay ma aniga adii aamintay جوجي دكتور 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 ما داعي walaalkay aad buu u dhig baxaya ee kaale wax ka qabo aad buu u dhig baxaya wax ma laga qaban karo waa naf baxayay wax ka qabo fiiri gacantiisu waa kulushay dhakhtar gacantiisu waa kulushay waa nool yahay walaalkay wax ka qabo dhakhtar caawin walaalkay caawin booliiskan telefoon diraa أبوه بقى ميادي قلتك تانيك أنيك وخسر أبوه ساسان خسر أنيك وكم ما هنا قلتك حتى واحد ما يدلين أبوه ويل أي قلتك مجرو أبوه حاجة أي قلتك تانيك هذا نخسر أنيك وخسري وكم ما يا أبوه maya taliya kuwan kuma jiraan kuwii aan rabi ajaysin tuugadan maaha waxaan u malaynayaa inay yihiin tuuga aan meeshan joogin waxaa laga yaabaa kuwa dool inay yihiin kuwaas oo aan meeshan joogin oo magaalada isaga tageen iyagu markay dhibaatadan sameeyeen taliya adigu baaritaankaada waa in go-an oo keliya laakiin ilaa cimrigayga ayaan anigu raadinayaa iyaga haddii aa heshid annaga noo keen waxbaa iska lifine annaga noo ku wareeji adigu waa iska tegi kartaa wada baabuurkii jooji si toos ayuu arkay ninkan hadduu gacanta u galana wuu kala jebinayaa laba cadow ayuu ku dhigayaa
waa nin military ah ninkaas war hadalka aan jirin iga daa waxaan wax ka jirin kuuma wada aniga ورسيدا نك والله يسيدا نك وانك ولا الكدلي نك يوسيق بحسن واكاس بحسن وانك ولا الكدلي نك محل يسيدا يسي وانك ولا الكدلي نك انا امس وما حد سميس محيين واحد ماشي اكلكت بوقاد مقالد كلكت ما ركتا ولا الكدلي دلي ايا يغ بحسدي ادينا واحد لا فوضى سمينيسا وما فوضى سمينيسا اقامس waxaan u malaynayaa inaad tuugada xiriir la leedahay saarkayga foq aad baad u fiican tahay adiga nin ciidan ayaad gacan ugu qaaday wadada dhexdeeda awoodeydana haddeer ayaan ku tusayaa anigu adiga gaashaanle booliis ayaad gacan u qaaday adigoo dabla military ah gacan adii qaadaysaa miya dareenkan korkayga ka muuqday dhiiggan aad arkaysid waa dhiiggii walaalkay ee sidaas ula soco wuxuuna isagu ahaa ninka ugu daacadsan ciidamada ka jira hindiya nooc kasta oo yihiin waan inaan kaa orgutaa adigu dhibic dhiiggaad korkayga ka daadisay ma cabsata adigu yaa haddaad ijajabin kartid ijajabi ajay sing adiga kuuma sujuudaye aqbo waryaasag waa maxay waxa halkaa ka dhacaya gardaraa laygu dilayaa adkaysigaygaana la imtixaanayaa maanta robert sharcigaynu ma dhigayo sidaas in loo garaaco nin bili-aadmi xawayaanka oo kale maxaan ka sugayaa ninkii waddada gudaheeda gacanta anigii igu qaaday ma sidaasaan ku sii daayaa waa inaad ka fogaataa ninkaas waayahay haddaad ba adigu tiri waan iska sii daynayaa haddaanba kuu sii daayo berrito subaxii maxkamaddu waxay leedahay caddaynaan rabaa adiguna xaggee caddayn ka keenaysaa lagu sii daayo ninkaas waa ku kaas hayo militarigaagan maxaan kuu qabtaa maanta ciidankayga mid ka mid ah ayaa askartaada xirtay kuma ma ajaysin maxaad waddada ugu soo siidaaseen ninkaas ma wax ka qabataan sidaa ha ila hadleen aniga ajiidsiina aniga igu soo wareeji hadduu dambi kaa galayna anaga ayaa wax ka qabanayno ajaysin arrin walba oo u geystay iyo wax walba oo laga qabanayo halkan ayaa looga qabanayaa aniga ayuu waddada dhexdeeda dharbaaxay ugu dhuftay isla waqtigaas isagu ma labisnayn shaqana ma haynin anigu waan labisnaa shaqo ayaanu ku jirin markaas goobjoog u ahaa militarinimo kuma daynayo idhagayso aniga ajiid singh waa nin military ah oo waddankiisa u dagaalamaya khalad walba loo geystana ka hortagaya laakiin haddii khalad yar loo geysto isaga waan idin baabi'inayaa askartiinoo dhan middaas maankaaga ku hay militariga aaway gudaha ku jira ajiid singh ninkan gooraa la dhahaa magaciisa le maqashi wejigiisa ma arkin ninkii kasoo horjeestana waa baaba'aa adduunyana maku waaraayo taas ogaaw military waa inaad hadalkeena anaga yeeshaa adna isku ilowdaa walaalkaaga dhimashadiisa walaalkaa waan fahansiinay isagana ma fahmin annagana waan u dhammayn midiga ogow ninkaaga militariga maafiyadaad la dagaalaydid
waa inaad iska ilowdaa annaga haddaan ilowdid reerkaa waan iloobaynaa iga baxsan maysid hay maxaa naqday aniga maa idilaysaa kaale bal idil aniga idil kaale idharbaxaya aniga idharbaxayay wacliyo wacal ku dhalay haddaan ku sii daayo war kan ka qabta kacliya kan feeraha ka dhawa walaalkay dadkii dilay ma sii daynaayo ninkii walaalkay dilay ma sii daynaayo maxkamadda sharafta leh ee badbaadada dalku markii la hor keenay dacwadda uu leeyahay master ajaysiin caddaynna la tusay waxa ay maxkamaddu ayadoo tixgelinaysaa ajaysiin oo ah nin militariya ku xukumaysaa 6 bilood oo xariga markuu gacan u qaaday nin ciidanka ka mid ah waddada dhexdeeda yariisow walaal sidee ku dhaceen arrintan yariisow maxaad u oynaysaa abow ilintaadu waxaan rabaa inay u daadato aargudashada walaalkaa oo keliya beer adeeg isgeli anigana isug intaan isbiirsanno aniga adiga wax allaaliya wixii maafiya ayaan tirtiraynaa abow warkaygana meel ku xiro haye military xabsiga gudihiis haddeer ku dhex caway adigu xanaaqaadu wuxuu ku dhaafinayaa gartaada bisaduba jiirku way u xanaaqdaa oo keliya waxba aniga ii caroonine wejigaadii dhaafi ku sii dayn maayo adiga ma ku sii daynayo doofaariga xunka ku sii dayn maayo aniga I will be here for a while after waan kuu soo laabanayaa adiga waan kuu soo laabanayaa idhagaysa Ajit Singh wax walbo aad banaankaas ku samaysay aniga waxba igama quseeyo 6 bilood aad meeshan ku xirnaanaysid iska ilow in adduunyo kale jirto taliya waxaad iigu ducaysaa muddadan 6 bilood aan xiranahay inaysan cumrigayga ku ekaanin oo keliya waxaan kuu ballan qaadayaa muddadan aan meesha ku xiranahay oo 6 bilood ah inaan wax dhibaato ah ka geysanin xabsiga gudihiisa xabsigan banaankiisa aad joogtid maalin walba aad imaanaysid sidaan kuma dhammaanayo waqtiga adigu yaad ahayd saaxiibaan garanayn magacayga waa giitaa soo baxay raac gebigeen waxaan leenahay cadow keliya waana gowraa laakiin gowraa iyo giitaa maxaa cadow ka dhigay aniga aabbeyga magaaladan dhul weyn ayuu ku lahaa wuxuu u baahnaa iskuul inuu ka dhiso gowraa ayaa dhulkii u baahday aabbahay wuu u diiday inuu ka gado weliba waxaan xasuustaa habeenkii Abo anaa ayaa i garab qabtay hoteelka ayaan ka shaqaynayay wax kastoo samayna aniga iyo annaa ayaa booliiska u soo sheegi jira walaalkay arrintiisana anaa akhbaarta u soo sheegi jira waan ka xumahay dhimashadiisa haddaan arrintaas u soo sheegi lahayn waqtigan waan noolaan lahaa walaalkay kuwu dileen ma dhaafayo aniga maya maafiyada way badan yihiin adigana kaligaada tahay ma iska dhicin kartid waxaad sugtaa maalinkii walaalkaaga xabsiga laga soo sii daayo maalinkaas sug giitaa militariga waa la soo daayay
ajaysin aniga aad ayaan kugu kalsoonahay haddana waxaan kugu wacay inaan arrin kuu sheego keliya sharciguna aad ayuu ku garab gelayaa sharcigeed igala hadlaysaa taliye waa kuwa aan damiir lahayn taliye kuwaas maad igala hadlaysaa oo sharciga dhulka ku jiiday gaawraa iyo xulufadiisa la shaqeeyo ajaysi sharciga ayaad meel uga dhacaysaa aniga waxaan sharciga meel uga dhacay ma jiraan sharcigana waxaa ku ciyaaraya kuwa aad sharciga u dhiibateen aniga waan ogahay walaalkayga inaad ii soo celin karin laakiin kubi dila ayaa lagaaga baahnaa inaad tallaabo sharci ah ka qaado sharciga muxuu qabtay war sharcigu waxyaabo badan ayuu qabtay adigu ma fahamsanid sharcigu tallaabooyinka uu qabtay waa runtaada aniga wax ma ogaan jirin sida shicibka sharciga u raacsan ayaan anigana weligayga u raacsanaa sharciga laakiin maanta wax badan ayaan fahmay maadaamaanu militari ahayna waxaan ku dhahayaa cadowgan waddankeena kala dagaalanay kama adka tuugada magaalada ku dhex nool xornimada markaan qaadanay sharci maxkamad askar annaga ayaa wada samaysanay maxaa arrinteeda xal loogu heli waaye qof walba nafsadiisa inuu badbaadiyin muxuu qore u qaatay maxaa yeelay qof walba sharciga ayuu ka aamin beelay hadda aniga weerarka qaadayo maadaama aad tahay nin askari ah waxaan u malaynayaa inaad la socotid ninka militariga ah ilaa iyo dantiis ka gaarayo inuusan istaagin wejigaaga carada ka muuqato waxay la noqoto wixii cadowgaaga inaad baabiinayso haddaad isku daydo ficilkaas inaad ku kacdid sharcigii iyo ciidankuba inay kaa soo horjeesta doonaan anigan kaa soo horjeedaba waxaan noqonayaa cadowgaaga koobaad ogow waayahay taliye waxaan kuu sheegayaa sharci ama cadow kuu ahaadaba inaysan joogsanaynin dagaalkan ku bilaabo hadeertan waad i garatay aan malaynaa anigoo military ajidsiin ah ayaa go'aankan gaaray tumaa tahay adigu waa aniga giitaa waa adiga giitaa soo maa haa maxaad u timaad halkan sabirkaana derbiga ku dheji waa ugaarsiga afraad ninkaanna waa john wuxuuna ka ganacsadaa gabdhaha waxaadna ka heli kartaa kaalinta shidaalka oo ku taala kontaroolka iskana ilaali hallow waxaa kula hadlaya dalaalkii gabdhaha waxaan ku hayaa kuwii hore kuwa ka daran oo khatar ah saas ogow arrinta gabartaan qurux badana tan anaaba ku baashaalaa goora awartiisay ka tahay madhadhamiha hallow gowraa igu wac kooraha hadda fursad kuma hayo hadhow soo dir
waa xuska aabihiis war waa maxay xuska aabihiis labaad ood sheegaysid waxaad ku tiraahdaa aabbahaagii baa ka soo baxay xabsiga iguna yar ahayla hadle aniga ajiidsin ayaa kuu baahan si dhaqsa ayaad bay ii garatay aniga waa aabbaha dhaqso hadal waqti ma haystee ma maqashaa qaraxa dhacaya waa dalaalkii naagaha kuu gadi jiray iyo shidaalkaadii intaba anigaa gacantayda ku qarxiyey sidaas la soco una qaada qaraxa maanta dhacaya inuu yahay dagaalkii ugu horreeyay oo aniga adiga dhexdeena ka dhaca waryaa fadhiga ka kac waxaa gooraa uu nagu amray ajiidsin iyo walaalkiisaba inaan soo dilnaa militariga iyo walaalkiis guriga kuma jiraan maya walaal labadoodaba guriga kuma jiraan labadoodaba waan weysanahaye xaggay galeen gita waxba hayla yaabin qorshaan waa qorshe aniga ii degsanaye war annagu rag baan nahay waa isbadbaadin karnaa la soco sidee isu badbaadine indhahaagoo kuu xiran ayaad dib dhex gelaysaa waxaadna leedahay dibkaas aniga waan ka dhex bixi karaa adigu yaa tahay war aniga waxaan ahay ninka hortaada maafiyada cadowku ahaan jiray adigana khalad haddaad samayso sheekada meesha ayay kusoo koobnaanaysaa shicibkana way kala tagayaan guryahooda kala aadayaan geed haddaad rabto inaad goysana kor lagama gooye jiridda ayaa laga jaraa gebigiisa war geedka anigu aan jaraayo ma jaraayo isagay waxaan jarayaa ilaa maa jiriddiisa maafiyada iyo meesha ay ku jiraan oo dhanna waa ruqsanaya anigu gebigood waxba kama reebaayo gowraa lamaad ayaa soo dhalanayo maafiyadana ma aha mid keliya waa kuwo badan oo faracyo leh annagana waa inaan faracyadaas wada laynaa kuwa sharciga ka soo horjeeda kuwa naagaha kufsada kuwa daroogada gada kuwa hubka soo geliya waddanka intaba waa inaan laynaa laakiin aniga waxaa ila fiican maafiyada marka hore in lugaha iyo gacmaha aan ka wada jarno markaas fiiri waxaa dhacayo adiga xooggaaga muruqaaga iyo maankaaga intaba ku adeego laakiin aniga ayaa warbixinta gawraa ku siinaayo baabi'i gebigoodba maya kuwa wanaga xog badii mar kale aan gaadayna sabax war meesha war isku dab saaro ee sabax dabal iyo nakan war aku dhaginay sabax juqraafigu ma aragta adigu ya intan oo dhan waa dhul intanna waa biyo intan oo dhan waa biyo xeerkan oo dhan hubka intaanu ka soo galaa marka askarta aniga ma waxaan ka dhigayaa malaaygi oo kaleeto meelahan geegeynaya annaga askar ayaan nahay mas-uul ayaana saaran waa inaan ka hor tagnaa haa ka hortag mid ii sameey adiga kun 986 dukaankii dahabka la jabsan jiray arrintaas wax ka qabo markaad heshidna aniga ii soo sheeg iska tag laakiin taliya isteji
nin saaxiibkayga askari ahaa ayaa ku maamahay daadkaa badan waa ku qaadaya geel wixii ka weynna waa xaaraan war maxaa way kuwan shilin miya kuwan waryaa alaabta maxaa baduu qiyaasiin waryaa beerka aniga la dabe waryaa khamaarna lisku ogay maxaa isku xaadhawaysiin waryaa meeshaan waa lisku maankaa loo goora qof taleefon diray ma jiro maya taleefon yaan la dirin albaabadana hala wada xiro waa ku tuuga neefan qawa waa ku tuuga yafi anga yafi waa ku tuuga neefan qawa yafi ma doonaysaa inaad noolaatid ama diida maalin keliyaan kuu daynayaa nolosha haddaad damacsan tahay inaad maalin dambe sii noolaatid ninkii gooro ahaa ee aad igu oran jirtay awoodda keliya oo magaalada ugu sarraysuu leeyahay ordoo intaa u tagtid waxaad ku tidhaahdaa awooddaada oo dhan la soo wada bax waxba laha la harin hadduu ku badbaadi karo ha ku badbaadsho anigu kollayba adiga waa ku dilayaa meel allaaliya meeshii gowraa lacaga ka soo geli jirtoo dhan aniga ayaa xiray middaana arkaysiin ayaana ugu dambaysay wixii aan xiray xagguu lacag ka helayaa isagu balse haa waxaad ku tidhaahdaa intuu nool yahay laamiyada ha istaago ha tuugsado meelaha tuugshashadaasna aniga xaggayga middaanaan hadiyad uga dhigayaa baahi ay hayse 2,000 ii dhiibe war waan baahanahay 2,000 ii dhiibe baahi ay hayse waxuun ii dhiibe waxuun ii dhiibe adinka waa inaad ii dhiibtaan adi ii dhiib baahi ay hayse waa ogtaa inaan ku dhaqaalay jiray waa idin baryaa waa ii dhiiba waa idin baryaa baahi ay hayso waa idin baryaa waa ii dhiiba baahi ay hayso maxaad ii fiirinaysaan ii dhiiba waa isuga baahi ay haysa baahi ay haysa gooramaan tugsanaya gooramaan tugsanaya gooramaan tugsanaya gooramaan tugsanaya gooramaan tugsanaya gooramaan tugsanaya waxsi adiga waxsi maxaad qalinaysaa anaysa kuma oran askarta lama dilay waa laga taa adigana waa dishay wax faa'iido ahna nooma keenin askartana waan u soo jeedisay hey adiga qaylada iga daaya ardal dalkan badan miiga dhaaftiino adduunyada dhan 24 saac ay dhimo xasidatii miiga naxaysigan dhamaantiina ani intii waa iskaga tagaa Soomaaliyan tagaa sayeelaki way dilaayaan wax darankii ay dhaarsan ma waryaa adiga naga aamus haddii adiga aad hindii ka tagtid dadku waxay moodayaan in goora awoodiisa hoos u dhacday ad awood la ka aad loo saanatay baxar ku jirta barakalaayo ama xasuubi aad feeraa laga dhawo askari mid sameey ninkan wad isaldhig ku dhaxir meeshaas ayuu nabad ku helayaa war misaan jeelka ku hayaa ninkan 24 saac soo aadanna ninkaas ma deynaye war muddo gaaban gudahooda aan ninkan magaalada uga fogeyn oon dirno Robert aniga inaan dadka caay ma jecli laakiin haddaan ugu talagalay inaan hooyada caayo ka bax sheekadaas ordayga kacinigan kacay
ما قوا تفاحا رويا أفرلات صعنا شن صعن قوا وحير لا يدمه مردوان صباحا قرا وعبال بسمية ملتري قسم دافايا نين كان والدي ليا هلا ومطبعدا ها ماي ويل ما دمن markuu dhinto kadib ayaa lagu soo qorayaa 24 saac wili lama gaarin kadib ayaa lagu soo qorayaa tali magaaladan banduwa baawar mar karta ma jirto dhageysaya ani takhtaran ah nina hadda sarrta ijifa inaan qalaan rabaa sakaraat way waa ka xumahay maxaa jira magaalada dhan hal qof ma loo xiraa waa amar sare igara lahaw kalyaanji wili lama soo weerarin laakiin waa la soo weerar doonaa militarigaas waxaanu geli doonaa inuuna qof dambe unu caga juglayn midaada mid hore meel saarabal takalliinji iska daay wariyaa xagee u socotaa gowra ayaan lacagtii baad ku wada 20 saac sug markuu kalyaanji dhinto asaga baaba'aye markaasaan arkayna wax dhacaya هلو كلينجي واي kalyaanji raashinka ma lagu keenay ها واركي هرتيس يالا raashin kali kuma eg ee bamba ku jiro والله حنقلي بامبو بامبو أردا ماشي والله حنقلي بامبا كجرتا أنا صاركي هذا قانجا ذوك بقسنتي كلا أردا أي أي هاي تلي أنا ويلك أنت اللي قصوري بامبا كجرتي بامبا ورسورة عريا هدي أربعة دتك سنة كدلان ترتيب لا يوت بنا كان يصيدن كوكان سنايان واحد كستول لقو كيرنا وانصوب بارنا أنا وانصوب بارن لقو مكان الراشن كلا صعب فرصة دكلي أي كافر سنايان وين بنا كوسو بحذ قولها قل داي بنتما قولها قل هذا بنتما قريها كورك سن ستيشن كورتي صورن مدمدو صور هذه دتكم ماشان كمان دهره وايه تلي أظن واحد سميسا تلفونكم ماشي لقى صدري سوشك labadiin xagga aada kalyaanji haye kii militariga waa dhintay ma dhintay waa dhintay laakiin gowra wuxuu ku yiri ilaa amar dambe meeshan sii joog waa igashi ولا دقيسو haye كلينجي على جوجو ma aqaano ما عيد لا تكرجي سوق صوتكتن صبح يرع كليانجي ميلتري قردو يا لقوانا يا وحبا كعب سنة هذو وريا كليانجي وروحان ومالينا يا نكونو دنتي وشاه وحلو قدري دمشقي كليانجي واتنا 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 ولا ساعو كلينجي سودنتي نلا شدن دم ماله أنا كودا عايش سنة قناة waaba fiicantahay kan inaad snaga dhinta unuka ilmaha in dhan lacagtooda saa bagiye hadda lacagtii noo herti anuka ilmaha inaan isla cuneyna khaar bati waaye kaliinta baninkii naga dili istariix weynaan ku jirnaa magaaladu waa isbedeshay tuugadayaa gambanaysa shacabkii askarti baa wareegaya tanoo kale inaan arkana ma ii dhinneed maqaaxidahaygii qamaarkaygii kulli in bandow laga dhigo siday ku dhacday hadday sidaas tahay mid keliya aan samaynaynaa war waaye ma samaydid waxaan la hadlaynaa taliyaha qaybta waxaan leeyahay labadaas nin sawiradooda inta qabatid magaalada lagu dhadhajiyo si dadweynuhu ay dadkaas u toogtaan haddii ay aragti ku arkaanba ma qabo xal kaleeto oo jiro xalkaas aan ahayn arrintu sidaas oo keliya ayay ku istaagi kartaa oo dadka maxay dembigay galeen qof kastoo dembi gasha ma sawiradeeda baa derbida lagu dhejinayaa ma hayna annaga sharci dhigaya in la iska dilo qof kasta taliya anigu arrinta waa kuu soo gudbiyey waxaan ka qaban karaa kaleeto ma jiraan haddaad diidda adigu war waxaan caddayntooda aadna haysan mar dambe aniga ilama soo hor istaagi kartid war dadka dila oo dadka dhaca haddii aan wax laga qabanaynin taallooyin ha loo sameeyo ha la ciso ayaga baarlamaankana kuraasa laga siiyo oo lagu xurmeeyo taliya ninka shidaalka lagu gubo gabdhaha ayaa ku baac mashtiri jira ninkaas
meesha kale oo la burburin jirayna baasabooriyada iyo hubka ayaa lagu kala gadan jiray ninka xabsiga lagu dili jirayna nin wuxuu ahaa tuugada la shaqeeyo oo rufiyaanintooda ma maqash war waxaad noo banaayle iman war nimankaas ayaga anigu wax kasta oo hadan waa dilaya kadib wixii dhacay ba dhacaan qodax iska siibideed leema sheegayo wax qalad aad sameeyay adiga wasiirada ayaan kugu dacweynayaa jaraa'idada soo baxana waan kugu qorayaa si falxuma ayaad ugu ceeboobaysaa war wixii aad doonayso samee waxba uma arka anigu askari saaxiibkay wuxuu oran jiray qasaare ninkeed magac ayuu ku helaa moogiye waxba dhibaato kuma arko taas magac lan ku helaynaa magac waana ka tagay taliye waa ku kaas war taliya hadal fiican ima soo sinin wani ii soo caga juglay asiga baan ka bilaabna shaqada waa inaan ku dhaqaaqnaa sidaan dharka uga dhigi lahayn arrintaas ma fududa ninka ugu fikrad badan ayaa ugu khatarsan nintaas la soco haddaadna dharka aadna ka dhigi karin waad bedeli kartaa haa waa inaad si dhaqsiga ku beddeshaa haddii kale ninka militariga ayaa noo qubaynaya sida ugu dhaqsiyaha badan ninka garaadada u siyaadi si aan ninka militariga oo aan uga hortegi lahayn waxaa akhbaarna soo gaaray geetaan in ay la jirtay militariga iyo walaalkiisa sideed u soo badbaadinaysaa gabadhaas tuugada adigay ku raadsanayaane kuwaas niman rag ma aha oo aniga qabashadeeda gabadhaas ay u afduubteen aniga gabadhaasaan ka fikirayaa oo daraaddeena baxarkan ay u gashay anigana waa inaan badbaadiyaa gabadhaas badbaadideeda waa inaan nafteeda u huraa waana baxay ciao
baabarti military gabadhu uu badbaadiyey waan ogahay waa nin military ah naftiisa ayuu u horay gabadhaas badbaadadeeda laakiin aniga qorshe fiican u degay gabadhaas boorsadeeda ayaan bamba geliyey markii boorsaas ay furtana giitaa iyo militariga way dhimanayaan adduunku ma harayaan dhagayso waxaan rabaa gurigan teleefon inaan u diro hooyaday kaligeed ayay guriga joogtaaye boorsada ii soo dhiib ma akhristaan joornaalkan gabar ayaa maanta bamba ku qorxay dadkaas maxaa loo qaban waayey baabart meesha uu wax ka qarxay zoonaha ma ahayno haa waa zoonahayga laakiin anaga madaxdan ka amar qaadanaa aniga taliyaha waxaan ku dhahay warqad fasaxana si oo militarigaas aan ku dilno tali in aan dembilayn haddii dembile lagu tilmaamo waxaan u arkaa aniga khalad adiga intaad xal raadinaysid dadkaas dilkii dhici iyo boobkii bay badinayaan waxaan kugu amrayaa si dhaqsi leh inaad amar aad ku bixiso si dhaqsi ku saxiix waa amarkayga waaya taliye damiirkayga aniga ma siinayn laakiin adiga wasiire anigu adiga amarkaaga ayaan warqadan ku saxiixayaa baabad adiga arrintaad waad ku guulaysatay in aan dembi lahayn baad dembi u yeelaysaa waaya saaxiibkaygii askariga ahaa ayaa wuxuu ku mahmaahay nin dhallinyaraa intuu laan ka booduu tala ka boodaa yaa haa kiran amar ka soo baxday madaxda waxaa la sheegay in labadaas nin la dili karo استك maxaa u istaagtay igu dhifanoo xabadda maanta ayuu noo bilaawday cadowtinimadeenna ma la socotaa jidkaad ku socotid inuu qalad yahay dadka holaca ay ku soconayaan way og yihiin inuu ku lug yahay sidaa daraaddeed ayaan kuu leehay ka soo noqo iska adkaaw walaalkaada ma soo celin kartidee inaad u kulantid maaye anaa ku garab galaaye ka soo noqo meeshaa ku socod sharcigana wuu ku saacidayaa bagadsan sharciga walaalkiis ma ahayn walaalkayga ayuu ahaa sharciga igala hadlaysaa sharcigaas oo magaalada dhan wada maafi ka dhigaya sharcigaas ma igala hadlaysaa oo gacanteeda bistoolo soo geliyay waan ogahay walaalkayga inuu soo laaban karin annaga waxaan u dagaalamaynaa mid kale walaalkeen oo kale ah siduu waddankan ugu dhimanin walaalna walaalkiis uusan ka go'in hooyna ee magaalada ay ku ciishoonin joornaalka ayaa maanta lagu soo qoray sida maafiyada oo kale militariga iyo walaalkiisa ninkii arko inuu toogto anigu waxaan ka socdaa hoggaanka dambi baarista waa maxay anigu waxaan rabaa taliyaha qaybta inaan la hadlo intaan wax ka baaranayno wax taleefona soo dhacay ma leh wax dibadda u dirsanayno ma leh tali waxaan u malaynayaa magaalada inaad ku cusubtaa anigana aadna garanayn maahe sidaa ilama hadasheen anigaba magacayga waa SK Matur magacayga maad maqlina u malaynayaa weliba 6 bilood kadib meel kale ayaa la bedelaa maxaa yeelay handadaad ma dhageysto haddii aad shaqadeeda hor istaagtinna askarta hoos joogto ayaa wax ka qabanayso oo magaaladan ahayn shaqadeeda aan wax ka qabto shaqada caba
gawraa ilaa inuu saaciyo telefoonku shaqaynaya berito adagoo xisaabtaada ku xiran xafiiska igu imaw militariyo ma filaynin inaad shaqada intaan ku dhammayn kartaan idinku gowraana waxaan u malaynayaa inuu cabsaday isaga oo keliya idinka wuxuu idiin mooday nabad sugiddii saxa ahayd intaan ku tago marka idinku haddaan idiin baahda anaa idiin soo wici doono idinka waa maxay feelashan waa feelashii wasiirka uu lahaa waraaqihii xisaabta waraaqihii dhismaha waraaqihii kale intaasoo dhan adiga ahaayo ajiidsi aniga waa baaba'ayaa igana raalli ahow waxaad doontid aniga ayaa ku siinayo marka hore waxaad barataa shaqada daacadnimada gowraa oo shaydaan tuuga oo kaleetana ka cadgooso oo ka har maxaa magacaho isagu kuu sameeyey adiga shicibkaa ku doortay shicibkaana kursigan ugu fadhidaa la soco sidaa daraaddeed shacabka waa inaad ka fikirtaa oo u danaytaa orijinaalka kuguma soo wareejinayo laakiin waraaqaha waan ku siinayaa maxaa yeelay waa hubka keliya oon maanta u haysta inaan kula dagaalamo adiga iyo maafiyada aad xulifada tihiin waana nafsadayda difaaceeda haddii aad isku daydid inaad maafiyada ana igu soo dirtid oo igu soo dalbatid waraaqahaas orijinaalka intaan qabto ayaan madbacada geynayaa magaaladana kugu ceebaysanaya maanta kadibna uma tegi kartid gowraa iyo taliyaha qaybtaba subax wanaagsan taliya wanaagsan maxaa daran shaqadan aad qabanaysid cimrigaad ku jirtid ilama wanaagsanaa xadkaaga ku ekow waan mashquulsanahay sidaas daraaddeed ayaan kuugu imid waraaqdan ku qusaysa adiga oo beddelkaaga ah taasaan kuugu imid iga guddoon waraaqdan anigu igama socotay waxay ka timid madaxda sidaas u qabso baabart ani beddelkay kama xumi laakiin waxaan ka xumaa garaadada lagu siinayo war madaxtinimaad ku halatay inta waddada aad istaagtid waxaad tidhaahdaa taliyuu ha guulaysto war dhaqso fardhiga iga kac mar horaan ku riyoonaayey waraaqda ii saxiix kursigan iyagana kac idhegaysaniyow askari saaxiibka ee horu wuxuu u yidhi shimbirkii duulimaad badan madaxa baysuu ku degaa nin abeese koriyow adiga u ahay tixsi duulimaad badan fuud kulul ayuu dabaashaa yaa salaam taliya haa taliya wasiirka ayaa akhbaarkaaga wadaa kaale halkaan imaaw anaa qaybta ka taliya igira alaab taliya magacaa kuma qornay rabbad beddelkii waa laga tala baxay warqaddan wasiirkaa soo qoray ee hore waxaa loo yidhi mahubsada meel xun baa u dambaysa ka kacday kursiga yaa shaqada dhan baa lagaa finish saga istaag waar saga istaag meesha haddana xidigaa garbahaaga saaran deji inta xidigaanu garbahaaga saaran yihiin waxaad u egtaa dhocol yaroo hadal barat haddana waa inaad si dhaqsila suunka aad u furtid ma xusuusataa robert maalin maalmaha ka mid a inaad sharciga meeshaan ku aflagaadayday haddana sharcigu adiga ayuu ku aflagaadaynayaa mid ayaad ilowday horay ayaa waxaa loo yidhi cagtii joogsan weydaa mar bay ceeb la kulantaa hadda axsaan baan kuu samaynayaa aniga si tartiib leh albaabka iiga dego waar saga bax meesha idhegays robert melihi aniga saaxiib ii mahmaaha laakiin aniga ayaa kugu mahmaahayay ogow horay ayaa waxaa loo yidhi lug dambe hadday lug hore dhaafto waa jabtaa mahmaahyo kale oo jirta ayaa waxay ahayd god sireed ha qodin haddaad qodidna ha fogeynin ku dhici doontidaan lama ogey sidaan oo kale loo mahmaahaa layskama tirorgeeye ka bax albaabka hoy tacablaawe baabuurka farahaga saarin waa ku dhammaatay maxaad ku hadlaysaa waryaa shibilyaw si sharaf leh igula hadal nin askariyaan ahay oo waryaa mii taqaanaa adigu aniga
saddex digle baabran ahay aniga saddex digle ahaa jiri hadda ma tihid laakiin geelaan leeyahayne dooraan leeyahay karoon ee hadda unug adiga maku sharfeeno waxaan sharfeynaa ninka kursiga ku fadhiyo ee hadda sacmi ninkaaga iska tag beesa haddiid wadanina iska lugay taagfey baabart doofaari oo xunka meeshaan xabsigaagii maaha gacmahayguna maanta ma xirna sow adigu ma aadan jeclayn inaad wax dharbaaxdid ukaadi isbatoore ukaadi tuugaa eryanaya iga badbaadi mise wuu dilaya waryaa mootada station ma ahaya stationka soo dacweys haddii arab adoo askari ma tihido askari waa ahay aniga laakiin waqtigan waqti amooraa lagu jiraa adaani ma taqaanido gaashaan la sare baabartiina aniga ahay inaan gaashaan la ahay aniga waa ahayd waa ku ogahay laakiin hadda jidka iga leex waryaa tuugada leeb ula shaqay jirti maanta maxaa kugu dhacay baabart sida ay raabiya qabo oo kale ayaad ordaysaa booliiska haddaysan booliis caawinayn maxay shacibka booliiska caawiyaan hadda ka hor haddii aad dareemi lahayd ayaa ogaan lahayd doonfaaryaw dhagaa xun leh eeyahow war ka saara maxaa helay war maxaa helay ka saara waayo taliye qaybta lama bedelin raabid waa la finijay kadibna waa la dilay marka maxaa qabtaa arrinta waa inaad wax ka qabatid aniga wax kama qaban karo fiilashay oo dhan muhiimka ayaa nin gacanta ku haysto waana khasbanahay wax ma samayn karo aniga sharciga haddii loo gudbiyana waa ii dhammaatay adiga waa ku ogaaday maqaar saar baad meesha ku tahay waxaa taaba iska yare wax uun xalakeen ii dhegaysa gawraa fiilashaydana ajidsin ayaa hayo haddii aad kasoo celisidna waxaad doontid ayaan kuu qaban karaa war ninkii wasiirka ahaa warku waa noo dhameeyey wuxuuna yidhi faylashayda ayaan u baahanahay walaal waxba ha walwalan arrintu way hagaagaysaa suuqa ayaan waxaan jiran ku daadinaynaa haye adiga wax ma maqashay gaawra ayaa wuxuu yidhi ninka militariga ahaa ninkii ii soo qabta 10 leg ayaan siinayaa hallow gawra miya maya waa walaalkiis militariga meeshuu joogo aniga aqaano xageed ka hadlaysaa adiga wadada dheer buntada ku taalo beenta dambigay leedahay mataqaan dhimasho aniga lacag ayaan u baahannahay ninkaasna aniga kuu geynayo waayahay anigaa kuu imaanaya adiga ma adiga hadda qofka taleefanka ii soo dirayay oo arrintaas igala hadlayay haa lacag ayaan u baahannahay ninkaas militariga ma rabo inuu magacayga ogaado lacagta isii hadda oo u baahannahay waayahay lacagta waxaan ku siinayaa ninkaas markaan arko kadib waayahay haddaan kuu geynayaa waana keligiisii soo fuul gaariga
war yariiso maxaa u dayseen maanta inay gabdhi imaanayaan miyaad noogeyne waaridkaa was anigaad iqayaantay nololna kugu dayn maayo raganimadiina ma intaanbaa hal qof oo keliya ayaad 4 qof isugu tagaysaan 4 qofood waxaan kula dagaalnaa maafiyada oo keliya annaguna goobasho ma naqaanee waxaan maanta kula dagaalaya anigoo ajaysiin militarina ah hubnu ma aan sito hadeerba laga bilaabo dumaashigay waa imaanaya ma macaanka sii cuna bardhow waa imaanayaa walaal yariisow 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 yaa ku dilay ii sheeg yaa ku dilay ii sheeg ii sheeg milatarigii maya qof banaanka u baxaya ma jiro siiba militariga iyo walaalkiisa marnaba ma baxayaan sidee ku dhici kartaa waa arooskayga adiga ajay iyo walaalkiis waa inay imaadaan war meeshaasi waa meel halis ah dad badan ayaa isugu imaanaya waana nagala faa'iidaysan karaa annaga gowraana wuxuu dadkaas uraadsanayaa sida cirbad ceel ku dhacday oo kale waayahay annaa arooskayga waan iska baabi'inayaa waa goormii arooskaadu berito ordoo arooskaada iska diyaarso annagu waa imaanaynaa array karood helasow aroos ma ahayn xaytaa farxad li'ida adugu maa kooxdii soo wacdid waryaa xaggeed ninka u diraysaa soo ma ogid inuu yahay ninka arooska ah array anigu farxaddiisa keliyaan ka hadlaay maahee dhib uma soo jiidayn minihee taas dhib loo arkay hadda ha laga joojiyo waryaa ninkan arooskiisa berito si sharaf leh ayuu ku dhacayaa waxaana la soo wacayaa kooxda studio alfaqi iyo sawturaxma dhammaantoodba waa ku salaamay waa idin salaamay maxaa idin keenay waxaan kaa dalbanayaa
anaga dad faqiir ayaan nahay hadday martida sii bataanna raashinka ayaa yaraan karo waana ku ceebooweynaa ha fikirin 10 qof wax ka badan arooska ma soo raacayeen ma gasay maxaad u fiirinaysaa sawirkan ninkan sawirkiisa maxaa inta keenay ma taqaanaa haa waa isbatoore daacad ah qiyaan ayaa lagu dilay wasiirku aaminay sida aawadeed ayuu u dhintay maxaad ku hadlaysaa indhahayga ayaan ku arkay wasiirka ayaa maalinkaas la shaqaynayay gowraha walaalkiis ayuu soo qabtay iyagana ninkan ayay dileen askariga ah ninkan oo kale inuu noolaado ayaan jeclaan lahaa waan baxay وزير الدولة هنولادو 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 وزير الدولة ninkii militariga ahaa waddanka si xornimo ayuu ugu socdaa ha ka baqin jaallo wasiir annaga si degdeg u soo qabanayna halkaana ma imaan karo taliya fiirid musawirka haddaad tallaabo qaado 7 xabadood ayaan kugu dhifanayaa ogow waan ku dilaya mar walba xad u leedahay bisoolad ayaad haysta hortaada ayuu taagan yahay ee ma dish ninka war ninka xabad ku dhifta xabadda igu dhufta taliyihiina amarkiisana qaata waxaad ilowdeen amar qaadashadii idinku markaa ciidanka qoranaysaan soo laydinma dhaaranin idinku inaad waddanka ka qabataan tuugada iyo wixii xun wax walba oo ay noqdaan maxaad u qaban weysaan idinku haddaa wax qabanaysaan midkaan dilay walaalkaygii daacadda booliiska ahaa waxaan u malayaa ciidankiinnan oo dhan inaad u shaqaysaan wasiirada oo dabadhifyo u ah maafiyada gaashaan la sare anigoo ajaysiina waxaan kaa ballan qaadayaa marka aan gowraha god ku soo ogaado inaan gacantaada dib isugu soo dhiibi doono hadday idinka idinla tahay gowraha dilistiisu inay tahay wax dembiya oo dowladda laga gelaayo aniga ayaa gelaya dembigaasna u bareerayo ee isii daaya hadday celin kartaan anaa u bareeraya iyo celiya war ninka hal la xiro war ninka haddaa soo xiri weysaan kulligii waan idin ruqsaynayaa shaararkan ninka siiba waxaad samaynaysid malad taliye ajisin waa runtiis ciidankaada maafiyada magaalada ayay la shaqeeyaan intaan raaci lahayna ciidankaada ajisin annagoo raacna ayaa noo roon ninkaas daacadnimo ayaa u dagaaltamaya shaqaduu qabanayana annagoo booliska ah ayaa loo baahnaa inaan qabano iga raallaaw taliye shaqada waan iska joojinayaa dabcan aniguna waa isaga tegayaa anigana waan tegayaa an naftirkee waa bax gawra anaa qoladiisa mid ka mid ah ayaa maanta guursanayo
उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। waryaa adiga ani ma ilowdi maxay soo wacan weydi igara lahaw waa dadagsanaa sidaasaan ku iloway militarigaw ma oga aniga istaaga ma dhaqaaqi kartaan cid meeshaa ka bixi karta ma jirto waa inaad joogtaan anigaba walaalkay sidaanoo kale u rajaynaya waxaan doonayaa aniga inaanaa ku daro oo mustaqbal yeesho laakiin dadkan ayaa iga dilay walaalkii hadda kadib magaaladan aroos dambe kama dhacayo gabar dambana lagama guursan doono meyd ayaa laga qaadayaa dheeshaanaa noo soconaysa sidaa ula socda waraayo doga aniga hore ayaan u aroos laakiin adiga waxaan ku tusayaa adigoo aroos inaad naagtaada aad nisa raga sidaa la soo waryaa naagtiisii keena si tartiiba waa gabadhaydoo kale adinka maxaa u saajideen muusiga garaaca أنا ويمد waryaana militarigaas aad garabsida anigana waad iga soo horjeesatay waryaa yaad u cagajugleynay annaa maad u cagajugleynay nin rag ayaa hortaada taagan si fiican u fiiri naag ma ahan wax hortaada taagan anigu dadka meel kale kama toogto ilaa aan ka ahayn wadnaha dheedheelna ma qaata aniga haddeertaan ayaan ku dilayaa meeshaanan kugu dilayaa war adiga lugta waan ku dilayaa laakiin waxaan sugayaa ninkii militariga ahaa wuxuuna meeshaan u imaan doonaa inuu adiga ku badbaadiyo adigu anigaadii aflagaadayday ciqaabteedana waad helaysaa waryaa jiiskaagan birtu way kaa dhacday lugtaada kale haddaa badbaadsan karta badbaadsan